hadduu ilaah yidhaahdo waxaan halkiisi ka sii wadi doonaa taxanihii aynu kaga hadlaynay dhaqanka reer guuraaga. waxaana qaadan doonaa caawa hadduu alla idmo qaybtiisii 5aad iyo agabka reer guuraagu isticmaalaan. haddaynu agab nidhaahno waxaynu u jeednaa waxay isticmaali jireen reer miyigu. waxaana loo kala qaadi doonaa 5 qaybood hadduu alla idmo. 1. qayb wax lagu cuno sida xeedhada, fandhaalka, digsiga iyo dhuraha. 2. qayb wax lagu shubto sida haamaha, eelasha, qumbaha, ubbada, jalamada, killiga, darmuuska, sibraarka iyo wixii la mid ah. 3. iyo qayb wax lagu gooyo sida gudmaha, faaska, seefta, waranka, fallaadha iyo wixii la mid ah. 4. iyo qayb lagu dagaalamo sida qaansada, gaashaanka, toorida, budharhka, usha, qoolasha, wadhafka iyo wixii la mid ah. 5. iyo qaybtan u dambaysa oo lagu seexdo gogol laga dhigto sida harkawaalida, hararada tolanka ama tolmaha oo ku jira dee meesha hadda uu furaashku inoogu jiro. aan dib u noqono qaybta 1aad. waxaanu nidhi waa qayb wax lagu cuno. waxaan maynayaa hadda waxaynu isticmaalnaa waxa la yidhaahdo qaado. qayb wax lagu cuno markaan idhaahno waa tuu wax lasoo darsado sida qaadadii iyo weel wax lagu soo rito sida saxanka iyo fujaankii. labadaaba reer miyigu iyo kuwa kale aan sheegi doonaba iyagaa samaysan jiray. tusaale, xeedho horta waa middaa meesha ka muuqata een xagga hoose ka calaamadiyey macnaha magaceeda aan ku qoray. xeedhadu waxay taagnayd booska hadda uu saxanku inoogu jiro oo cuntada ayaa lagu ridan jiray. waxa ku dhex jirana waa fandhaal. fandhaalkuna wuxuu inoo taagan yahay ama uu taagnaa meesha hadda qaadadu inoogu jirto. waxaa ka midigeeya waa dhure. dhuruhu wuxuu taagnaa meesha qaadada weyn ee hadda amalaasta la yidhaahdo ee birta dheer ee markii la rabo in cuntada la rito lagu soo dhurto meeshay taagnayd ama ay taagan tahay hadda ayuu taagnaa. oo markii la rabo digsiga cuntada in laga ayaa dhuraha intii la qaato lagu soo ridan jiray cuntada. hadday tahay jariidh iyo hadday tahay cambuulo dee sida qaadada hadda loo isticmaalo unbaa dhurahana loo isticmaali jiray oo cuntada lagu soo ridan jiray. saas baana loogu bixiyey waxa weeye dhure. fandhaalkuna waa sida aan soo sheegnay oo asagana cuntada lagu cuni jiray. abwaankii la odhan jiray cabdi gorod ayaa halkan inagu baraya qiimuhu lahaan jiray fandhaalku. wuxuu yidhi fandhaal cali caduur qoray haddaan lagu fataaqayn, fud malaasan caanahu haddayn fiiqdu daba oolin, sidii awr faruur xidhan haddaan foorar lagu raagin, ma fogaanin gaajadu haddayna feedhu kor u boodin. fandhaal waa kaa hadda ku dhex jira xeedhada waa la qori jiray. marka wuxuu yidhi fandhaal cali caduur qoray. cali caduur waa ninkii qori jiray fandhaalada samayn jiray iyo maaragtay weelasha dee. haddaan lagu fataaqayni buu yidhi cuntadan baashan jaydha bahal jaydh oo intii la kariyey si fiican maaragtay loo soo nadaamiyo caano lagu daray haddaan lagu fataaqayno saa loogu cunaynin. fud malaasan caanaha haddayna fiiqdu daba oolin, yacni
foodka saa baasha inta loo daro fandhaal weyn in caanahoo laga daba fururugsiiyo haddaan la raacinaynin buu yidhi sidii awr faruur xidhan haddaan foorar lagu raagin ratiga markuu faruur xidhan yahay caasha kor u taagi maayo wuu foorarsanaya marka cuntada haddaan adoo fooraro aadan fururug laga siinin buu yidhi ma fogaanin gaajadu haddaynan feedhu kor u boodin haddaan labada keliyood ka dibirin gaajadii ma fogaanin weli way taagan tahay buu leeyahay inta haddaan kaga soo gudubno qaybta labaad waa qayb wax lagu shubtaa la yidhi waxaa ka mid ahaa haantu way fara badan tahay ama haamuhu way fara badan yihiin dhoon horaadaa jirtay dhoona dambeed baa jirtay dhiisha tarida dhiisha qabada dhiilashu way fara badan yihiin iyaga laftooda taruurkii baa jira waxa weye xararafkii baa jira kii kale la odhan jiray dhakalkii baa jira marka kasoo qaad marka haamahan haan kasoo qaado haandhe un dhiilalkana dhiil kasoo qaad qumbaha jira isagana qumbe baha la yidhahdo waa midka meesha asna ka muuqda obada iyadna midda meesha ka muuqata jalamada ama killiga darmuuska isagana waa kaa meesha ka muuqda waa darmuusyadii hore afyo xaaslaha ah sibraarka waa kaa isagana aan soo dhigay intaasoo dhan iyagana waxbaa lagu maaragtay shubtaayo dee caanaha iyo biyahaba waa lagu shuban jiray markii haanta intii lagu shubo caana la lulayo dumarku way u heesaan haamaha oo waxay ugu heesaan haaney bulloy iibax waagii dharaarowye yacni waagii baa baryey iibax awr fooftay baan doonay ama awr fakatay baan doonay ma fayoobida ogye ma furkaa lagaa nuugay waan ku fahansanaya waan ku arkaa inaan la fiicnayn ma furkaa lagaa nuugay oo yacni maqorqodi iyo wax jinni baa ku helay geeljira ku qooraansay laba qaar lagu kala jir haanay bullay iibax yaan subag la ibadine yaan soo baxlay odhan heesa noocaas ayaa loo qaadi jiray qaybta saddexaad waa qayb wax lagu goosto waxaanu ku sheegnay gudmaha faaska seefta waranka iyo fallaadha intaba waxbaa lagu goosan jiray ama waxbaa lagu dili jiray gudmaha geedaha lagu gora iyaga laftooda dhowr qaybood bay leeyihiin oo gudunta faagtada iyo gudunta waxa weeye jubbida gudmo fara badan baa jira marka adugu faaskuna waa sidoo kale seef waa bir dheer oo baldhaban oo xagga dambe meel la qabsada leh seeftu oo af badan galla way leedahay warankuna waa bir baldhaban oo waxa weeye geed u lahoo dheer la geliyo oo af badan weeye fallaadhuna waa qaanso saa loo soo qalloociyey iyo leeb afka bir dhuuban ku leh oo la gano waxaasoo dhan waxaa samaysan jiray reer miyiga abwaankii la odhan jiray raaga ugaas oo tilmaamaya shaqaday qabsan jireen walow uu ka dhigayo markaa dambeed inay yar dib dhaceen wuxuu yidhi kalax iyo fandhaalkiyo intaan koorta qoranaynay koraygiiyo haweenada intaan kaba u yeelaynay kambalkiiyo ardaayada intaan kala laxboodaynay kaymaha cagaarka leh intaan kaalay odhanaynay karaar maarti iyo rayfal buu keenay faransiise koolmaanka iyo siinku waa kaalintaan gabaye kari maaye eegoon cilmiga kor ugu laabtaaye kaambooy halla ha jaro reer tolkay kaba caddiisiya buu yidhi kalax waa waxa weeye fujaanka yararka bahalkan yarka ee cuntada lagu cuno fujaamada aan dhahno dadka qaarkiina gorrod bay dhahaan waa weelkan yararka ee hada cuntada lagu cuno markii lasoo ridinayo weelasha lagu cuno siiniyada aan ahayn kalax iyo fandhaalkiyo intaan koorta qoranaynay fandhaalkuna de waa kan halka ka muuqda koortuna waa midda geela loo xidho koraygii haweenada intaan kaba u yeelaynay kabay u samayn jireen waxaa weye dee kabaha maas bay ahaayeenoo iyaga carruurtooda u tolan jiray marka intaan haweenkii carruurta kabaha u tolanaynay
kambalka iyo ardayada intaan kala laxboodaynay kambalka guriga agtiisa iyo duleedka intaan iska ciyaaraynay kaymaha cagaar kale intaan kaalay odhanaynay kaymaha waa dhulka xidhadhka ah ee doog gale intaan adhiga kaalayda iska haynay karaar maati iyo rayfal buu keenay faransiis waa qori karaar maati waa qori rayfalkuna waa qori ayuu faransiis sameeyey inta anagu adhiga iyo xoolaha didinaynay faransiisku wuxuu samaystay buuri iyo reer galbeedku qoryo waaweyn haddana waxay hadda samaysteenba diyaarada iska duulayoon ciidaba wadin iyo gantaalo adoon ogeyn madaxa kaaga soo dhacay koolmaanka iyo seenku waa kaalintaan gabay koolmaan waa taleefanka seenkuna waa birta dheer ee maartay meesha uu taleefanka maartay anteena dhaanawamaniya koolmaanka iyo seenku waa kaalintaan gabay wey anigaa gabay oo dee inaan sameeyaa la rabay buuri karina maayo eegoon cilmiga kor ugu laabta hadda dee kama gaadhi kara buu yidhi waa layga tegay ee kaambooy ha jaro reer tolkay kaba caddiisii qaybta shanaad ee u dambaysa waa qaybtii lagu seexan jiray ee goosha laga dhigan jiray sida harka waalida harkaha tolanaha iyo wixii lamid ah harka waalidu waxa weeye saan laga sameeyo xoolaha siiba lo'da tii la magdiyo la hagaajiyo ayaa gogol laga dhigan jiray bahalkan la yidhaahdo hararka tolanaha ahana waa harar si fiican intii loo hagaajiyey meesha sijaayadoo kale ugu jiray reer miyiga abwaan ka hadlahayay gogosha iyo nidaamkeeda oo islaantiisa la hadlaya wuxuu yidhi kaa waayay waalidkay inaad wax u lilaysaa yacni waalidkay inaad wax u wanaajisaa waan kaa waayay waalida inaad wagac u siisaa harka waalida inaad wagac u siisaa gogol qurux badan u dhigtaana waan kaa waayay buuri wallaahad walaalkaa u tagi waaga bariis haddaad sidan bedeli weydo walaalkaabaad u tagi reerkiinibaad u tagi bay ka dhigantay marka hantidooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda ayay reer miyigu meel ku gaadhi jireene wax meel looga soo dhoofiyey iyo wax maartay aan nacfi lahayn mayna dhowri jirin inta aan ku joojiyo qaybta lixaad iyo insha allahu taxanaheennay kusoo dhawaan doontaan haddaa ladno